shacabka ku dhaqan magaalada Doolo-Ado ee gobolka Liibaan ayaa cabasho ka muujiyay wadada isku xidha Doolo-Ado iyo Nageyle. Wadadani oo uu dhererkeedu dhan yahay 360 kiiloomitir ayaa ah wada isku xidha deegaanka Oromada deegaanka Soomaalida. Wadadani ayaa ah tan halbowlaha u ah shacabka ku dhaqan gobolka Liibaan iyada oo dhaxmarta degmooyinka Dhikaasuftu, Fiiltu, Boqol Maaye iyo magaalo xuduudeedka Doolo-Ado. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Doolo-Ado oo la hadlay SRTV ayaa sheegay in wadadani ay tahay mid dhib weyn ay ku qabaan shacabka ku dhaqan gobolka Liibaan. Sidoo kale shacabka ku dhaqan degmada Doolo-Ado ayaa ka codsaday xukuumadda deegaanka Soomaalida in sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo jawaabo cabashadoodan maadaama ay halbowle u tahay wadadani bulshada ku dhaqan gobolka Liibaan. run ahaantii dhibaatooyin badan ayaan tabanahaynaa haddaanu nahay reer Doolo-Ado iyo gobolka Liibaan dhammaan. dhibaatada ugu weyn ee dadka haysatay bulshada haysato waxa weeyaan wada la'aan weeye. wada la'aan baa ka jirta wadankii magaalada Nageyle ilaa iyo Doolo-Ado waa magaalo halbowle ah oo gobolka isku xiraysa deegaanka Oromada iyo maxay ahayd gobolka Liibaan isku xiraysa. marka xaqiiqatan dhibaatooyin badan baa ka taagan. wadada way yar tahay ilaa 300 kiiloomitir weeye. 2 iyo 3 maalmood ayaa wadada la sii maraa. dhibaatooyin badan baa ka taagan. marka xaqiiqatan gobolkan waxa weeye si la ogsoon yahay waa gobolka xag diiliyada canshuuraadka iyo maxay ahayd dakhliga gobolka meesha ugu badan bay ka mid tahay gobolka Liibaan. Doolo-Ado iyo maxay ahayd Boqol Maayo wadooyinku ugu xumay dhibaatooyin badan waa ka taagan yahay. marka xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in si dhaqso ah loogu jawaabo. Doolo-Ado iyo Boqol Maayo waxay soo jiraan 70 kiiloomitir. roob yar xuduud ah. gabadha umusha laga soo qaado Boqol Maayo waxay ku dhimataa dhexda. dawladda kiilkashanaad madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dawladda federaalka inta waxaan ka codsanaynaa in wadooyin shacabka loogu adeego ay u sameeyaan.